xafladda soo dhaweynta maamulka magaalada Raaso ayaa ka qabsoontay magaaladaasi Raaso ee gobolka Afdheer. Munaasabadan oo ahayd mid lagu soo dhaweynayo maamulka magaalada Raaso looguna mahad celinayay xukuumadda deegaanka Soomaalida ayay ka soo qayb galeen wasiir ku-xigeenka xafiiska ganacsiga iyo gaadiidka dawladda deegaanka Soomaalida, maamulka gobolka Afdheer, kuwa degmada Raaso iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. waxaana madashaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka xafiiska ganacsiga iyo gaadiidka dawladda deegaanka Soomaalida mudane Xasan Sheekh Yuusuf, gudoomiyaha gobolka Afdheer mudane Shukri Xasan Barre, gudoomiyaha maxkamadda guud ee shareecada deegaanka iyo qaar ka mid ah waxgaradka magaalada Raaso, iyagoona tilmaamay inay tahay wax lagu farxo allana looga mahad celiyo nidaamka maamul magaalo ay heleen shacabka degmada Raaso. laba farxadood waaweyn bay tahay annagoo ka soo qayb galay xafladii daahruga ee jaamacadda Raaso ee daraata dhacday. maanta inaan ku sugno waan daahfuro xafladii maamulka magaalada ee Raaso oo ay golaha deegaanku presidiumka iyo cabinetka iyo baarlamaanku ansixiyeen in maanta xafladeeda ka soo qayb galo farxad bay tahay. idinkana waan inaan kala qayb galo maanta farxadiina arrin muhiim bay noo tahay. runtii waa arrin fiican oo muddo dheer la sugayay. magaalada Raaso ilaa muddadii la soo degay waxay ku socotay koritaan hawli ah, horumar hawli ah ay bulshadu sabab u ahaayeen, nabadgelyo fiican, taas oo sababtay inay xukuumaddu ay u garato markii la arkay degmada koritaankeeda, baaxaddeeda, dadkeeda wanaagsan, waxqabad iyo horumar la yimaaday, magaalada la dhisay, ka qaybgal fiican la sameeyay, in ay xukuumaddu ay ka garawsato oo maanta 25kii maamul magaalo iyo 14 degmo ay Raaso qayb ka noqoto waa guul weyn ee u soo hooyatay shacabka Raaso. marka waxaan leeyahay guusha ay noo soo hooyatay idinkan inaad ilaahayna ku mahad celisaan, farxadna ku muujisaan, maantana aan wada qaybsanno waa arrin fiican oo guul baan yaan isleeyahay. magaalo meeshu hadday noqoto wax walba imaanaya, nacfi walba imaanaya magaalada, laakiin hadduu nin walba tuulooyinka haddii la badiyo adeegii baa ku faafahaya oo lagu rafaadahaya gaadhsiintiisii. laakiin meeshu magaalo hadday noqoto dadku waxqabadkiisii iyo waxyaabaha iyo idin meel urursan bay noqonaysaa. faa'iidooyinka ay leedahay maamul magaaladu hadda waad arki kartaan 6 maamul magaalo hadda ka hor jiraysa. 6 maamul magaalo iyo magaalooyinka kale deegaanka ayagoo laga yaababa in waxa hormarin haya waxa weeye un maamul magaalado labada keelaa ee magaalada ama dhowr iyo 10 kilomitir bay xooga la saaraya oo miisaaniyad fara badan oo ta degmada la mida ama ka badan yaa maxay magaalada galaysa. shaqo abuur baa laga helayaa oo dhalinyaro fara badan oo wax baratay yaa hogaaminaysa ama shaqaale ka noqonaysa. shaqo abuur kale waxa laga helayaa hadday kabar istoon noqoto iyo hadday noqoto bilicda magaalada korqaadeeda dadkaayo idil shaqo ku helayaa waxyaabo fiican baa laga helayaa. ilaahayga oo mahad iskale marka nagu simay inaan maanta u dabaaldegno. maanta waa maalin aad iyo aad u qiimo badan, maalmihii qiimaha badnaa oo isa soo daba socdeen. xaflad bay inoo dhiibtay. waxay inoo horeysay inaynu sida uu wasiirku sheegayay jaamacaddii inaynu soo daahfurno. maantana waxaa inoogu xigtaa inaynu daahfurayno iyadana oo aan soo dhaweynayno maamulkii magaalada Raaso. deegaanku dhammaan wuxuu ku jiraa xaflado lamida xafladahan markii laga reebo jaamacadda. arrintaasi waa arrin aad iyo aad xusid u mudan. marka ugu horeysa ilaahay baa subxaanahu wa tacaala mahad inaga mudan, waan ugu mahadnaqaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala. waxaan inaan idhaahna alxamdu lilah. lain shakartum laaziidanakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid. labadaasi way isgarab yaallaan. haddii aadan waxaad haysato ku shukrinin
waxaa ka dambeeya cadaabkuna darajaad buu yeelan karaa adduunyadii waa la isku cadaabi oo waxaa laga yaabaa in lagaa xirmaaniyo wax badan aakharana iyadana qofka uu u yaallaa marka ilaahay baa inaga mudan awalan marka ugu horeysa xamdiga uma bacda dalika waxaa inaga mudan barnaamijkan aan maanta u fadhino wixii asalka u ahaa ama asbaabtii keentay dowladda deegaanka soomaalida sida aynu ognahay isbeddelkii kadib waxyaabo badan oo aan jiri jirin baa hana qaaday xukuumaddu inay marba ay ummaddu meesha u habboon ay ku jahayso adeegga ay bixinaysa siduu ku gaari lahaa ay ka fikirto 7 sano ee imika soo dhaafnay waxyaabo badan oo 30 sano iyo 30 sano aan qabsoomin baa qabsoomay maantana ilaahay wuxuu suurto geliyay inaan u dabaaldegayno soo dhaweynayno ismaamulka cusub ee laga hirgelin doono ama loo ansixiyay magaaladan Raaso magaaladan Raaso oo magaalo dad aad u fara badan ku nool yihiin baaxad ballaaran leh u qalanta maamul magaalo iyo wax kale oo ka sii badanba dawladduna way ku mahadsan tahay inay garatay Raaso inay u qalanto maamul magaalo waxaan rajaynaynaa inaha kale ee dhiman ee la tabayana in ay dawladdu tixgelin doonto oo la heli doono insha Allah ta'ala waa maalin kale oo farxadeed bay noo tahay inagoo maalin ka hor oo maanta maalintii 3 ku ahayd ka soo baxnay dabaaldegii ballaadhnaa Raaso Islamic University inaan haddana maanta mar kale u dabaaldegayno aan isugu nimid inaan muujino farxadeenna ku aadan ka mid noqoshaha degmada Raaso ay ka mid noqotay ballaadhinta structure-ka deegaanka Soomaalida farxad weyn bay noo tahay inaan arrintaas ugu nimaadno ugu horreyn ilaahay baan subxaanahu wa tacaala u mahadnaqaynaa taariikhda inagu soo simay marka xigtana waxaan u mahadnaqaynaa xisbiga talada dalka haya iyo xukuumadda deegaanka uu hogaaminayo madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar